أنا وحنا عيدك حق دلك الصوماليات وحنوص سميسنا إن أمدين الدفاعنو بدبادينو meel kasto ay dhibaato ku haysato ama dhibaato cadow ha noqoto ama mid ha noqoto ilaahay ku mid diiday in xawahay mid badbaanideer oo sida markay aniga sida markay abaaru dhacaan oo kale xalay waxaan ku hooyanay deegaanka dhanaane oo ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saakana waxa la diyaariyay ciidamadii kuwaas oo ka itimi doona dhanka iyo deegaanka Gandarshe waa deegaan dhaca xaq dhanka xeebta ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ciidamadu u kala qaybsami doonaan dhanka buuraha iyo waliba dhanka xeebta aniga waxaan qayb ka ahay ciidamadaasi lugta ee ku tagi doona deegaanka Gandarshe waxaan u dhaxayn doonaa labada ciidanba daawasho wacan daawadayaal ciidamadii dhulku adiranayaan cusoo dhuunta iyo cadow dood ku yimid kuwa naga dhashay aan ku dhaadano dhiranayaan dhacdayaab labay naftu maqashayo waxaa timi dhaaraan kii dhiglo ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba dhiidhiyeen inta hawlgalka ku jirnay ciidanku waxay burburiyeen goob kooxda nabadiidku ay ku baadiirteen dadka shacabka una ahayd bar control isla goobta waxa warbixin nagu siiyay taliyaha ururka 27 guutada koobaad ee qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Nuur Maxamed Gaabo Nuur Faray sidaad arkeentaa waxa waa meeshii ay dhigaj u yaalaan jagboontiga koobaad ay ummadda muslimiinta oo Soomaaliyeed ay ku kumaadi jireen ee lacagaha baada uga qaadi jireen waa jagboontiga koobaad ee laga galayay magaalada la yiraahdo Gandarsho waxaan ku soconnaa si maaragtay xawahay aan u qabano magaalada Gandarshe hadda waxa noo jirtaa 500 mitir oo hortayna noo jirtaa iminka meeshan aan arkaysin waxaan ka duminay waabtii xumeed ee ay ku qaadi jireen lacagaha baada ay ummadda ku dhibi jireen ku gumaadi jireen waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay ka waantoodo qawaarijtan caadaysatay inay hantidooda dhacaan ee gumeystaan oo waxaysan awoodin ay ka qaadaan annagu waxaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u sameysnaa inaan ummadayna difaacno oo badbaadino meel kasto ay dhibaato ku haysato ama dhibaato cadow ha noqoto ama mid ha noqoto ilaahay ku mid diiday in xawahay mid badbaanideer oo sida markay aniga sida markay abaaru dhacaan oo kale anagu waxaan u sameysanahay inaan mar walba dhibaato kasto oo soo wajahada ummadda Soomaaliyeed inaan garab istaagno haday cadow taana sidaan oo kale anagu fujino sida arkaysaan meeshaan adarkaysaan maalin kale isbaara lagu ma qaaday cadowgu ma fadhiiso doono waxay naqad doontaa meel bartamihii ciidankayna waxay ku mari doonaan birito ama laga bilaabo saacadanba si nabadgelyo ah oo kalsooni leh oo lacag lagu weydiinayn oo qofna gumaadin qoranayna ku taageen baadna inuu qaadi doon waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed sidii noola shaqeysay iminka way xogtan ugu soo siinayso si taagtaaka ee noo sheegayso meelaha cararayaan oo shashan iyo lix meelaha marayaan nagu sheegayso inay noola shaqeyn anigu waxaan ula shaqeey doonaa si ilaahay dartiisa baadna kama qaado doono waana u dhimanaynaa waana u dhaawacmaynaa waxaan sameysana adiranayaan ciidamadii dhulku adiranayaan cusoo dhuunta iyo cadow dood ku yimid kuwa naga dhashay aan ku dhaadano dhiranayaan dhacdayaab labay naftu maqashayo waxaa timi dhaaraan kii dhiglo ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba dhiidhiyeen adiranayaan ciidamadii dhulku adiranayaan Gandarshe haddaad dhegta ka maqashay daawade ama aad hore u taqaaniba waxay caan ku tahay oo degmo kasta laga yaqaan dadkeena Soomaaliya wax u gaara hadda ma degmada Gandarshe waxay caan ku tahay dhirtan hadda daawadayaal arkaysaan oo waa geed loo yaqaan qumbaha nooca loo yaqaan iyo waliba geed fara badan oo kala duwan degmada Gandarshe waxay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo gaareen si nabadgelyo waxa ay ka soo kicitay deegaanka dhanaane waxa ay safar dhulka aan ku soo marnay annaga oo lugaynayna degmada Gandarshe waxay ciidamadu kooxda nabadiinoodyadka fircirka milishaadka al-shabaab markay arkaan awoodda ciidanka ay baneynayeen ama ay ka yaacayeen maadaama ay u babacdhigi karin awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hogaaminaysay oo asaa ku aragteenba
qayb ka mid ah markaan safarka soo maraynay taliya nuur maxamed gaawe nuur faray uu nooga warbixinayay halkii checkpointiga u ahayd ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka waxaan hore u sii geli doonaa degmada Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose dhulka iyo badaba barwaaqada dhextaalo ee beedhigay idinka u dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine dhulka iyo badaba barwaaqada dhextaalo ee beedhigay idinka u dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine you dhadhamin ka dhacso you dhadhamin ayuu dhadhamin ka dhacso you dhadhamin ayuu dhadhamin idinka u dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine